السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan ka hadlo fanaaniintii maanta xaqdarrada ama sida xun ama sida dhaqanka baxa loola dhaqmay ee lagu xiray magaalada Hargeysa. war fanaaniintu kuma heesaan Ingiriis, fanaaniintu kuma heesaan luqad kale oo dunida looga hadlo. luqadda ay ku heesaan waa Soomaali. waxay fanaaniintu xor u yihiin nin kasta oo Soomaaliya ama ummad Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin in ay si xornimo leh ay ku tagi karaan oo si xornimo leh shacabkooda kula soo iinayaan ama ay fankooda kula soo qaadanayaan kuna soo noqonayaan wadanka ama gobolka ama magaalada ay u dhasheen in ay ku soo noqdaan bay xaq iyo xuquuq u leeyihiin. ummadda adduunyada dadka yani waxay jiraan luqado aan adduunka fanaaniin luqado aan adduunka laga fahmay ku heesa haddana la dhageysto oo dunida meesha rabaan tagaa. kuwaas waa fanaaniin dad bay ka dhasheen qabaa'il bay leeyihiin dad bay leeyihiin. war fanaaniinta Soomaaliyeed ma aha dawlad, fanaaniinta Soomaaliyeed ma aha qabiil gooniyeed ma aha. fanaaniinta Soomaaliyeed waa fanaaniin magacoodu waa far, waa inay xor u yeeshaan dunida meesha doonaan inay ka tagi karaan, waa inay horta taa xor u yeeshaan. waxaan nasiib darro inaanu maanta lahayn looyaro noo dooda dunida, inaanu lahayn maxkamado sharci noo goynaya. dee fanaankii oo aan maanta aan dawlad mushaar ka qaadan maxaa la yidhahdaa meel kale aan lacag ka soo gelin reer iyo xaafad iyo family iyo dad leh, haddii fanaankii uu xogkii xortiisa u yeelan waayo ama xornimo uu ku tagi waayo magaalo kale oo luuqad Soomaaliya looga hadlo oo uu ka soo heeso oo markuu magaaladiisa ku soo noqdo uu nabad ugu soo noqon waayo taana nasiib darro u arkaa. waxaana ku cabaarinayaa dawladda Somaliland. waxaana leeyahay shacabka Somaliland waa shacab dadnimo leh, qiimo leh, qadarin leh. dawladda shacabkuna waa laba kala duwan. marka waxaan leeyahay shacabka Somaliland ha kacaan, ha ka hadlaan xaqdarrada loo geysanayo fanaankooda qiimaha ku lahaa fanaankooda dhageysanayeen. fanaanka maanta soo ifbixiyay fanka Soomaaliyeed, burburkii fanka Soomaaliyeed maalintii burburka Soomaaliya dhacday fankii Soomaaliyeed uu la burburay fanaaniintii soo celiyay qiimeeyay. fanaaniinta maanta dunida meel walba ay Soomaali ku nooshay xataa qurba jooga ilmaha yari uu yaqaano in la xaqdarreeyo, in la dhibaateeyo, in la xidho. welibana waxaan anu kasii qaracsanahay ninka ragga xabsi ugu adkaysan karaaye. war fanaaniinta waxaa ku jirta fanaanad haweene oo dumar ah oo hooyo ah oo ilmo leh oo ilmaheedii iyo gurigeedii iyadoona tegin lagu xidhay maanta xabsina ilaa hadda ku jirta. taasaa maanta nasiib darro ah. waxaan leeyahay xuquuqda Somaliland haddii aanay shacabkooda u doodayn fanaaniintooda dee fanaaniintii cid qiimeynaysaa ma jirto. war fanaanka ha laga daayo qabiilka, fanaanka ha laga daayo gooni go'a loo samaynayo, fanaanka ha laga daayo. fanaanku wuxuu ku heesayaa waa luuqad Soomaaliya, waa inuu xor u yeeshaa fanaanka Soomaaliyeed siduu siyaasigu xor ugu yahay dunida meeshuu dooro inuu ka tegayo ee maalinta uu magaalada waddanka ka taliya ama gobolka ka taliya uu kusoo noqdo aan la xirayn. waa inuu fanaankana loo siiyo xornimada intaa leeg. ninka maanta business la ama adduunyada meesha loo businesskiisa ka samaysan karo siduu xor u yahay buu fanaanku xor ugu yahay inuu dunida meesha doono ka tagi karo uu ku heesi karo. waxaana fanaanka qiimeeya qiimaha ugu horreeya siiya waa shacabkiisa. waxaan leeyahay shacabka Somaliland ka dooda oo ka hadla oo fanaaniintiina xiran ee xaqdarrada ah ka hadla. haddaad idinku maanta ka aamustaanna dunidoo dhan baa ka aamusaysa. fanaaniinta Soomaaliyeedna waxaan leeyahay dunida meel walba joogtaan ka hadla fanaaniinta xaqdarrada loo geysanayo. fanaanku inaanu gobol lahayn, qabiil lahayn, meel u go'an aanu lahayn, xuduudna fanaanka aanu lahayn. xadigaha geeskuna in aynay xuduud aynay fankooda lahayn waxa caddeeya guddoomiyahooda, waxa caddeeya guddoomiye ku-xigeenkooda, waxa caddeynana annagoo qayb ka mid ah, waxa caddeynaysa fanaan Soomaaliyeed inaanu xuduud lahayn. fanaannimada xeerka dunida u yaalla caddeynaya. haddii ay xeerkaa Somaliland ka xoog weyn tahay ama ay jebinaysana dee waa loo wada joogaa. believe me aniga ma aha fanaan kastoo Soomaaliyeed ha ka soo hadla xaqdarrada loo geystay xidigaha geeska. بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.